عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبت قاليقا كسر هذا مقال عصب كان كات كيفية فضل عنده مقال كان قوة عصب لا قري مقالك جنال كان سبسكرايب صاروا سي أدو هشوا مقال هذا عصب عن سوق بنا سي أدو فائدة ستة إن شاء الله أشر قرينا صاحب كاغا سي أدو فائدة ستة تريد كان حان قادنا مانتا تاريخ ذا كوبيكنيت لاتي 3 أكتوبر 2024 maalin Arbaca ah. Trade kan rules kan ku qaadanay iyo shuruudaha ku qaadanay ayaan rabaa inaan muuqaalkan ku tafatiro insha Allah. Aan tagno daily-ga. Daily-ga waxay noo muuqdo. Daily-ga maxaan aragnaa maxaase inoo muuqdo. Waxaan isweydiinayno horta almost still selka inoo sii daadan doono at least weekan soo socda xitaa inoo selkan sii daadan doono aanu sii ololeynaya sababta aan ugu sii ololeynaya waxaa waaye almost wax loo socdo waxaa waaye draw of liquidity gaan hoose draw of liquidity gaan loo socdaa barta loo socdaa draw of liquidity gaas bartaas marka halkan OB ku jiro bartan OB ku jiro candle OB oo madow xogaa reaction noqdo macquul and then sidaas reaction ku dhaco at least markaas marka la qaado liquidity gaan fursad bay qurux badan inay suuqa u aad doono macna overall direction ka hadlaya fursadan ka faa'iideysanayna waa gooni. Okay, trade kan xilligan qaadanay xilliga NY ama New York session saacad taqaano halkan fair value gap ayaalo halkan fair value gap hadda la joogo oo waxa muuqda daily ayaalo halkan weekly fair value gap ayaalo weekly gaan tagno almost the weekly fair value gap ka lagu jiraa marka reaction waxaan ka sugaynaa weekly OB ga marka la yimaado reaction bay qurux badan halkan weekly OB ayaalo marka la yimaado halkan waxaan leeyahay waa liquidity draw of liquidity marka halkan la yimaado reaction bay baxayo liquidity gaan la qaadaa cool waa OB gaasaan haddana aloo jilaysanaa anyhow marka wixii dhici doono waa falanqeyn doonaa dib malaha laakiin trade-ka maanta qaadanay ayaan rabaa sidaan ku qaadanay 4 hour aan soo laqano marka horta previous daily low ala qaaday laakiin marka trade-ka galeynay previous daily low lama qaadin 4 hour kan tagno 4 hour marka tagno almost hadda muuqaalka xilli dambe ayaan duubayaa waa 7 saac iyo 8 daqiiqo habeenimo intrigan waa hadda taariikhda muuqaalka aan duuba taariikhda waxaa waaye 24 October laakiin trade-kan wuxuu dhacay maantadan oo arbacada ahayd 23 October 2024. Okay, halkan waxaan ku haysanaa break a block 4 hour break a block that's cool waa la jiidan waa lagu noqdo waa laga soo daatay waa option-ka 4 hour ku isii aan ka sugay trade-kan markuu candle-kan xirmay oo 4 hour ka gaduudka ah oo soo jibiyay candle-kan 4 hour oo body ku soo jibiyay breaker block-ga markuu jibinay waxaan sugay kan furmi doono candle-kan mid kan furmi doono inuu retest back ku sameyn doono kadib la soo daadan doono 4 hour candle-kan markuu xirmay candle-ka xig inuu sal yahay iyo cadeed candle-kan markuu xirmay candle-ka xig inuu sal yahay iyo cadeed that's cool candle-kan markuu furmay breaker block oo retest ku soo sameeyay retest back then wala soo daatay 1 hour maxaan ka haysanaa 1 hour waxaan ka haysanay CRL candle range liquidity aan ka haysanay aan soo dhaweeyo halkan waxaa ku haysanay
1 hour fair value gap. That's cool. Halkan 1 hour fair value gap ay noogu jiro. Kan 15 minutes waa iska dhaaf. So 1 hour fair value gap aan ku haysan waa kana gapka. Cool. Candle-kan markuu xirmayay entry ma aanan order garayn. Candle-kan inuu ixtiraamo fair value gapka aan sugay. And then kan xigo aan entry ku qaato. Okay. Waxaan kaloo haysanay CRL candle range liquidity. Candle-ka 1 hour-ka ugu dambeeyay waa la qaaday. So fair value gapka abuuray waa la qaaday, then hoostiisa lagu xirmay asabodi lagu xirmay. That's cool. Then candle-ka xiga markuu furmay aniga shiftiga entry wixii dhamaan aan raadsaday, and then sidaas ayuu baxaayay wax drawdown yar lagu qabtay oo fair value gapka test back lagu sameeyay, then waa la soo daatay. That's cool. waa la haysan sarajina. Okay, breaker block oo 1 hour noo jira halkan. Breaker block oo 1 hour uu jiray, so laguma laaban laakiin waa iska calaamadaystay. So laguma laaban candle-ka inuu ku laabtaan sugayay. So way noqon weys marbadu candle-kan asabod hoos ugu xirmay fair value gap hoostiis. Next candle inuu soo noqon doono kana CRL oo ku sameeyay. So ii cadeed. Cool. 15 minutes tagana. 15 minutes maxaa ii support gareyn kara aan dhahay oo selkan igu sii taageeri karo. 15 minutes halkan waxaa ka helay fair value gap. Halkan 15 minutes fair value gap ku jiro meesha calaamadaysan oo jeedaan. 15 minutes fair value gap waa kan is support gareeyay isii inuu fursadan selka isku noqon doonto. So markuu candle-kan ixtiraamay markuu ixtiraamay, so markaas ayaan qaatay entry shiftigii. So haddana waxaan sii haystay order block oo 15 minutes waa kana candle-kaas waa order block aan si fiican idinku calaamadeeyo. This is order block kaas oo buying oo blue so selka kadib waa la soo daatay si qurux badan. Another order block haddana laga sii ixtiraamo laga sii daatay. So no order block, that's order block, this is a breaker block. Kana breaker block iyo order block al isku ixtiraamo. Okay, so powerful ayuu trade-kan 5 minutes imaanayna marka entry waxaa inoogu baxay unicorn model. So aniga shiftigan markuu sameynayay entry ma saarneen. Shiftigan markuu uu sameynayay lugtaan dheer oo selka markay soo daadinayso shiftiga uu sameynayay entry ma saarneen. Halkan aan shiftiga sugayay. So shiftiga aan sugayay maxamo halkan fair value gap iyaalay aan active ka sugi karo. So bartaan haddaan ka qaadan lahaa almost SLK laguma dhici lahaa, laakiin meelaha breaker block ka qaadan lahaa entry waa laga saari lahaa. Okay, halkan wuxuu sii ixtiraamay 5 minutes order block. So marka waxaan sameeyay dhaqaaqan waxaan ku haystay halkan waxaan ku haystay inversion. Meesha inversion fair value gap ku haystay. Halkan waxaa ku beegnaa fair value gap caadi oo pure ah. So labadii iska caawiyaan. Inversion ka soo calaamadaystay fair value gap inversion ka soo calaamadaystay. Inversion fair value gap ka soo calaamadaystay, and then waxa ii ixtiraamay this candle at trade-kii active ka dhigay. So waxaan iska cancel-aynaa. So this candle at trade-kii active ka dhigay. Candle-kan aad ujeedaan oo selkii aan circle-ka geliyay active ka dhigay. So candle-kan markuu asabodi uu hoos xirmay oo yariiska blaaska asabodi kan waa kan asabodi markuu hoos xirmay kan xiga horaan ka order gareeyay entry active ay ka dhigay. Haddana waa la soo daatay wax yar drawdown la geliyay. Order block 5 minutes lagu noqday. Ka lagu noqday, and then waa laga soo daatay. Boom. So entry sidaas ayuu inoogu baxay. This is not model that's in entry. This is a unicorn model. That's cool. I think you have understood what I'm saying. Okay, ina fahamta rajeyna waxaan idin sheegayo.
so entry sidaas ayuu noogu baxay almost anaga 20 biiba raadinaa er ubood ama hoos ubood waxa waa 20 biib waa targetkeena 20 biib waa targetkeena SL-keena waa 10 biibs simple as clear we don't need anymore okay inshallah asxaabta qaaliga muuqaalkan halkan ku soo gabagabeynaa aniga hal mid idin tal ahaan idin kugu daray qofkii entry qaato war before iyo after ila imaw dheh before after aduusan kula imaanin qofka meesha wax kuma haya bojo meesha ku haya so I'm before after kidin tus okay before after kidin tus waa kana trade-ka marka la active gareeyo waa kana trade-ka candle-kii active gareeyay waa kan this candle waa ugu dambeeyay waxa ku noqday inversion fair value gap-kiga halkan waxa ku haystaa idin dhahay inversion fair value gap plus fair value gap caadi halkan iyaalo meeshaan fair value gap caadi iyaalo iyo inversion fair value gap marka lagu noqday candle-kan uu ku noqday oo active gareeyay boom sidaas ayuu soo daatay so aan aragna marka sawirka xiga aan aragno okay wala soo dhaqaaq soo ma jeedid okay waa kana wali uu socdaa trade-ku uu socdaa so waxa lagu noqday 5 minute order block so marka la tagay order block la taabtay haddana waxa dhacay reaction haddana another order block halkan ka sii sameysmay waa this candle of high marka waxa waa isaacideena uu taabtay markuu taabtay isla markii waa laga soo daatay boom halkan automatically wuxuu create gareeyay breaker block so aragna marka suuqa marka step u soo qaabka u dhaqaaqay in aad fahmi kartaa fiican so breaker block lagu soo noqonaya soo ma jeedid almost breaker block marka limit waa laga sii daatay soo ma jeedid breaker block marka la taabtay oo sida loogu soo noqday waa la jibiyay oo lagu soo noqday waa laga sii daatay okay boom soo ma jeedin halkan dhalaan uu soo noqday the reason why uu soo noqdo waxa waaye halkan waxa yaalay order block waa that candle intus movement-iga ina la socon kartaa fiican suuqa this is kaas buluug ee fiican aan circle buluug kaas waa yes kaas lagu noqday dan waa laga soo daatay all the way TP boom soo ma jeedid daani calaamadeeyo TP-gi waa laga hoos maray waa laga sii hoos maray okay marka qofka saa inuu before after kula imaan karaa before trade marka active laga dhigay waa kan boom wala dhaqaaqay waxa lagu soo noqday entry-gi haddana waxa daro dhalinyaro lagu qabtay waa la soo daatay adiga 60% camal oo dhaqaaqay 40% aan dhinayd waxa dhaqaaqay 80% 20% aan dhinayd boom waa ka wali laguma dhicin hadda lagu dhacay TP-gi so marka waxa la rabaa entry inuu ahaado mid before after qofka inuu ka hayo hadda before after ka haynin qofka meesha wax kuma hayo inshallah muuqaalkan halkan ku soo gabagabeynaa inshallah inuu muuqaalka xiga waxaan rajeynaa farxadda noocyadeeda kala duwan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh